بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسكي هore waxaan ku soo tilmaamnay الدولة الخوارزمية iyo tataarka dagaaladii dhex maray. waxaan soo tilmaamnay in dowladda ay duntay, madaxweynaheediina uu baxsaday, kadibna uu ku geeriyooday jasiirad yar oo ku dhex taalla baxru Ghazwiin. waxaynu soo marray magaalooyinkii bariga xigay ee waaweynaa, siiba Bukhaara iyo Samarqand iyo wixii ka ag dhadhowaa oo tataarku ay gacanta mariyeen. waxaynu hadda isku dayi doonnaa bal isla sanadkaasi 617 hijriyada oo runtii ahaa sanadkii ugu cajab badnaa laynta muslimiinta marka loo eego taariikhaha hore, inaynu dul marro cabbaar dowladdii oo bilaa madaxa, magaalooyinkii oo ciidamadii jabeen, iyo Jenkis Khan waxa uu ka yeelay. dowladda tan labada gobol ee ugu waaweynaa waxay ahaayeen gobolka la yidhaahdo Khuraasaan iyo gobolka la yidhaahdo Faris, ama aan idhaahdo gobolka la yidhahdo Khuraasaan, Faris waa u soo noqon doonaa, iyo gobolka Khawarzim. Khuraasaan waa gobol ku yaalla waqooyiga Afghanistan iyo bariga Iiraan. intaasoo la isku daro ayaa taariikhdii muslimiinta hore loo yaqaanay Khuraasaan. waxaa ku yaallay magaalooyin waaweyn oo caan ah oo ay ka mid ahayd Balkh, ay ka mid ahayd Marwa, ay ka mid ahayd Nisaabuur, ay ka mid ahayd Haraat. waa magaalooyin inta badana maqashaan fulaan an-Naysaabuuri, imaamu Muslim oo kale, ama fulaan al-Marwazi, waa reer Marwa, ama al-Balakhi. magaalooyinkaasi waxay ahayd magaalooyin waaweyn oo muslimiinta dhulkay deganaayeena ilaa laga soo gaadho Ghazna, dowla al-Ghaznawiya dhulkay joogi jirtay. Ghazna waa Kaabuul hoosteeda, ilaa 150 kilomitir bay ka hooseysaa. Khawaarzamna waa magaaladii Samarqande aan sheegaynay bay bari ka sii xigtaa iyadu markaa, ama aan idhaahda galbeed waqooyi bay ka xigtaa. galbeed waqooyi ayay Samarqanda ka xigtaa. waxaana mara webiga Jiixoon loo yaqaano oo markaasi hadda dhex mara labadan dowladood ee Uzbekistan iyo Turkmanistan la yidhaahdo. Jenkis Khan wuxuu ku talagalay inuu bulshada madaxdeedii duntay marka hore baqa geliyo si aan cidnaba uga hor imanin. dabeetana 3 kooxood oo ciidamadiisa ka tirsan ayuu kala diray. 3daa kooxood koox wuxuu u diray iqliimka loo yaqaano Farghana. Farghana waa gobolka ugu xiga China markaasi. dowladda al-Khawaarzimiya dhowr iyo 10 dowladood oo imika jira ayaa la isku odhan jiray. dhankaa China ay xuduud kala lahayd, dhankanna Ciraaq bay xuduud kala lahayd. dhankan sare Qawqaaz oo dhan bay haysatay, dhanka hoosena ilaa Sind bay joogtay. webiga Sind mara waa Bakistan, webiga dhex mara Bakistan qaybteeda koonfureed Karmaan la yidhaahdo iyo waxaasoo dhammina dowladda ma ka tirsan. marka waa dowlad aad u ballaadhan. si hadda waxaan joognaa qaybteedii sare oo ah dhulkii buuraleyda ahaa, dhulkii barwaaqada badnaa, dhulkii dowladdu ku xoog badnayd. qaybtaas sare marka aynu joogno, kooxda koowaad wuxuu u diray magaalada la yidhaahdo Farghana. Farghana waa Uzbekistan bay ku taallaa. waa magaalooyinka markaa iyada iyo Otraar baa ugu xigay dhanka China. 500 kilomitir baa markaa bari looga kacayaa Samarqanda oo meeshii uu markaa uu joogo duqii Jenkis Khan ahaa. koox labaadna wuxuu u diray magaalada Turmud, imaami Tirmidi, Tirmid intaba way u akhriyaan. imaami Tirmidi magaaladu ka yimi weeyaan, saaxibu sunanka waddankan hadda Uzbekistan la yidhahday ku taalla. wuxuu kaloo diray iyadu 100 kilomitir oo quray koonfur ka soo xigta Samarqandada marka aynu joogno. wuxuu kaloo diray
koox kale oo qalcad weyn oo kalaaba la odhan jiray oo qalcadihii ugu waaweynaa ee nahru jooxuun ku yaallay ah saddexdaa firqadood buu diray saddexdaa meelood buu u kala diray saddexda meeloodba dadkii ku noolaa waa shacab dhulkaa lala simay raggii waa la laayay dumarkii waa la addoonsaday carruurtii kadaalik wax kasta oo ka jiray wuu tirtiray waa ka uu tilmaamayo ruwaat taariikh nin ka midaba wuxuu leeyahy waxay yidhaahdeen buu yidhi ina atataara laa yartawuuna ila biاddimaa walaa yascaduuna ila biاlkharaabi waاtadmiir wainahum laa yuhzamuun bay yidhaahdeen tataarku kuma haraad beelaan dhiigga mooyaane waa dhigii cabo waxay kaloo ku sifaynayeen liibaanta iyo farxadda iyo badhaadhahi iyo sareedada iyo barwaaqada waxay gaadhaan marka uu ummad la halaagee la tirtiro yacni waa joogkooda waa cayaartooda iyo faraxooda iyo rayrayntooda iyo sareedada iyo barwaaqadooda waxay helayaan marka ay dad tirtiraan ka saddexaad waxay yidhahdeen waa ciidan aan la jebin maxaad u malaynaysaa shacab risaalada la gaadhsiinaya ay noocaa tahay dowladdeedii sarena ay duntay jinkisaan iyo ciidamadiisii markaa waxay soo galeen markay saddexdaa magaalo soo baabi'iyeen ee dadkii la wada baqogeliyey ayaa waxaa loo soo kacay afghanistan waqooyigeeda waa dhulkan taajiku degaan waxaa la soo qabtay magaalada la yidhaahdo balkh markay yimaadeen waxaan hore loo arag bay sameeyeen laakiin dambay ka lahaayeen reer balkh way u soo baxeen waxay ka dalbadeen ammaan magaalada inay nabadgelyo ku soo galaan dadkana ay nabadgelyo siiyaan lana ogol yahay inay dowladda tataarku meesha soo gasho ammaankii buu siiyey dabeetana wuu dhaafa wuxuu tegay magaalo kale oo waqooyiga afghanistan ku taalla oo taalaqaan la yidhaahdo taalaqaan iyada markii uu tegey waa dhul qalcado waaweyn leh xusuun tiro badan leh dabeetana way isdifaaceen dhowr bilood buu go'doomin ku hayay dhowr bilood kadib waa la jabsaday wixii rag sheegan jiray wuu gumaaday dumarkii iyo carruurtiina farsamadiisii buu ku isticmaalay wuu soo dhaafay wuxuu yimi magaalo loo yaqaano marwe markii uu soo galay waa magaalo weyn marwe oo turkmanistan ku taalla balkht aynu markaa sheegaynay uu cahdiga siiyey 450 kilomitir ayay galbeed ka xigtaa magaaladaasuu soo galay magaaladan markii uu ku soo socday reer balkh buu soo maray qoladii uu ammaanka siiyey wuxuu yidhi idinka ammaan baan idin siiyey laakiin bishart way la dagaalgelaysaan waynu wada duulaynaa mar waynu ku wada duulaynaa marka ammaankiinu saasuu ku sugmaya dadkii waa iska baqeen waa aqbaleen axad alkutaab raghib asirjani baa wuxuu leeyahy reer balakh mar kastoo muslimka la jebinayo ma sidan bay u dhaqmi jireen balakh waa meesha iminkana maxaa la yidhaahdaa laba meelood oo casrigan aynu nool lahay gaalada caawiyey ayaa ahaa taariikhdii tataarkana labadii kooxood ee caawiyey qola waa kurdida waqooyiga ciraaq degta tataarka way soo caawiyeen dagaalkii baqdaad iyo dhulka lagu qabsanayana way ka soo qayb galeen waynu iman doonaa qolana waa waqooyiga afghanistan qolada joogta labada qolee hadda maraykanka soo caawiyay ayaa tataarka markaana caawiyey waxaa la yidhaahdaa reer balakh waxay raaceen tataarkii dagaalkay la galeen ciidan ballaadhan oo uu hogaaminayo jankiskhaan wiil uu dhalay ayaa marwo soo qabtay reer marwi iyagu waxay go'aansadeen inaanay isdhiibin dirirna inay galaan dadkoodii bay mobilize gareeyeen 200,000 dad gaadhaya oo ciidan ay ka dhigeen bay dabadda ugu soo saareen ninkan aan dabadda isku haleelaa la yidhi dabadda muddo laysdilay dagaalkii cabbaar buu socday muslimiintii waa sabreen tataarkiina waa u sabreen waa la isgumaaday akhiiran waa la jebiyey qoladii muslimiinta ahayd waayo nafsiyaadka dadka muslimiinta waxaaba ku jira dee tataarka waa jeysh alaxmarkii ay odhan jireen laysma hortaago
laysma hortaagin waa jabeen waqca rahiiba baa dhacay muslimiintii 200,000 ahaa intoodii ugu badnayd waa la laayay baaqigiina maxaabisnimaa loo qabsaday in yar mooyaane kadibna magaaladii marwo la odhan jiray ayaa la go'doomiyey xisaar lagu sameeyey 4 maalmood markay go'doon ahayd ayuu ina Jenkins Khan waraaq u qoray ninkii qaa'idka magaalada ka ahaa wuxuu leeyahay niyow wixii dhacay dhace hadda aan nabadgelyo kala saxeexanno waxaan idin siinayaa magaaladiina tan ammaan bishart ammaanka aan ku siinayo waxaan rabaa inaynu kala saxeexanno aad soo baxdo aynu wada hadalno ninkii magaalada madaxda ka ahaa arrinkii wuu aqbalay mar haddii magaalada laga guurayo caynkana ammaan la bixinayo dagaalkiina wuu ku qadhaadh yahay wuu soo baxay waa u yimi markii uu yimi ina Jenkins Khan wuxuu faray in sida boqorrada loo soo dhoweeyo waxaa la sameeyey soo dhoweyn weyn xaflad baa loo sameeyey ninkii madaxda ahaabaa meesha yimi waa la ixtiraamay waa la maamuusay kadibna wuxuu yidhi waxa aan rabaa heshiiska aynu wada gelayno in dadkaagii waaweynaana kaala qayb galaan isla markaana dee dawlad weyn baanu hadda nahay oo dhulkii ka talinaysee inaanu dadkii magaalada ama duqayda ahaa ama dawladda saraakiisheedii sare ama waxa kan wixii noo shaqayn karee dee shaqo qaban karana inaanu dooranno heshiiskaa wada gallo ayaan doonaynaa marka adiga waa ku soo dhoweynay noqo duqaydii iyo waayeelkii magaalada noo keen dib buu laabtay wuxuu u yeedhay dadkii madaxda ahaa dadkii isaga ka agdhadhowaa dadkii waayo wuxuu u ballan qaaday inuu dhul siin doono inuu maamulka ka qayb gelin doono inay dad laysfahmo noqon doonaan ninkii magaalada madaxda ka ahaa marwe dib buu dadkii ugu laabtay wuxuu keenay wixii magac iyo maamuus ku lahaa magaalada markii uu dadkii soo ururiyey oo soo dhoweyntii loo sameeyey oo meesha yimaadeen ina Jenkins Khan wuxuu amar ku bixiyey dhammaantood in la xidho dhammaantood xadhiggaa loo jiiday dabeetana wuxuu yidhi 2 su'aalood oo qudhaan idinka rabaa magaalada wixii maalqabeena liiskooda qora wixii farsamo yaqaanee techniciana xirfadyahanee sanaaciinana liiskooda ay sameeya waxaa loo qoray magaalada wixii dad waxhaysta deganaa ee maalqabeen ahaa waxaa kaloo loo qoray magaalada wixii joogay farsamo yaqaan intaasi markay dhacday magaalada madaxdeediina la hayo askarteediina hore loo soo laayay wuxuu yidhi magaalada laga soo baxo dadkoo dhan ha loo yeedho dadkoo dhan baa la isugu yeedhay markii ummadoo dhan la isugu yeedhay buu kursi dahaba meel loo dhigay waa ina Jenkins Khan halkiibuu fuulay awaamirtaan soo rogayaa buu yidhi hadda amarka koowaad wax allaaliya wixii madaxa shacabka hortiisa ha lagu bireeya buu yidhi wixii madax ahaayoo dhan dhegtaa dhiigga loo daray waa la gowracay intaa kadib buu wuxuu yidhi wax allaaliya wixii farsamo yaqaan ah qaraqoram ha loo diro qaraqoram waa caasimaddii Mongolia markaasi iyo tataarka looga talinayay caalamulislaami iyagaa technologyga dunida markan hogaaminaya iyagaa farsamada looga dambeeya wax allaaliyo waa dagaalkii labaad Germany markii la jabiyey wixii lagu sameeyey wax allaaliya wixii wax aqoon ahaana wuxuu yidhi ha la diro farsamo garanayay waxaa loo diray qaraqoran baa loo diray waxaa soo hadhay wixii maalqabeena wixii maalqabeena buu yidhi iyaga waa in la toorjar gareeyaa ilaa intay ka caddaynayaan wixii khasnad magaaladan taallay meesha ay taallo wixii taajir ahaana waxaa lagu guray garaaca loo diray iyo tumista waxii adduun ay hayeen iyana waa sheegeen magaalada buu yidhi ciidanku ha galo wixii wax fiicanee ثمينة شيء قيمة لي يالا لعق يالا ذهب يالا wax qurux la yaala waxaasoo dhan magaalada laga soo guro buu yidhi ciidankii magaalada ay galeen wixii wax qiimo yaalay oo dhan baa la soo guray 3 maalmood ayaa la gurayay magaalada wixii yaalo askartu shaqo kala haynin wixii magaalada nafle yaala in la ururiyo 3 maalmood baa la gurayay baa la yidhaahdaa
xataa guritaanku wuxuu gaadhay bay yidhaahdaan boqor hore boqorradii muslimiinta ka mid oo sanjar lo odhan jiray ayuu yidhi xabaashiisa ha la qodo isna dahabiyo wuxuunbaa malaa ku jiray xataa boqorkii sanjar lo odhan jiray xabaashiisii waa la qoday iyadoo la baadi doonayo wuxuun in la heli karo intaasi markii ay dhacday ee magaalada wixii hanti yaallayna la qaatay ayuu amarkii kama dambaystaha bixiyey wuxuu yidhi magaaladani wayna la dagaalantay ciidan baana inugu soo saartay waa maanta laga bilaabo ha la laayo dhammaantood wuxuu soo rogay qaanuun labaad oo ah dadka magaalada jooga oo dhan in la laayo magaalada dhammaanteed baa la dilay baa la leeyahay ibnulahir fii kitaabihi alkaamil wuxuu leeyahay ina jengis khan wuxuu amar ku bixiyey markii dadka la wada laayay in meydka loo tiriyo buu yidhi dabeetana meydkii baa la soo tiriyey tiradii meydku wuxuu noqday buu yidhi 700,000 goob qura la wada dhigay 700,000 oo qof oo hal magaalo degan yacni waxaad ka fakertaa cawaasimtii dunidu dhulkaasay ahaan jirtay waaga meelaha ugu badan ee bini aadam dega bay ahaan jirtay 700,000 oo qof baa madaxa laga jaray magaaladiina buu leeyahay marwo la odhan jiray ikhtafaa dikruha min ataariikh buu leeyahay warkeedu taariikhda halkaasuu kaga baxay intaa markii ay sameeyeen bay ka dhaqaajiyeen waxaa la qabtay magaalo la yidhahdo naysabur iyana waa magaalo weyn oo khuraasaan gobolkaasi ka mid ah waxay ku dhacdaa waddankan hadda eeraan la yidhaahdo waqooyi berigiisa bay ku taallay naysabur markii uu yimi reer naysabur iyana way isku dayeen inay isdifaacaan 5 maalmood ayuu go'doomiyey go'doonkaa 5 maalmoodii markii uu dhacay oo xisaar lagu hayay oo dadkii baqeen oo naftii isugu timi oo wararkii marwe iyo dee samarqando iyo bukhaare iyo talq iyo wixii uu magaalo soo baabiiyey warkoodii la hayo dadka waxaad mooddaa intaan laba soo gaadhin inay geeri baqayaan yacni baqdin daraaddeed inay geeriyoonayaan ayuu akhiiran magaaladii furtay dabeetana wuxuu yidhi magaalada dadka ku jira oo dhan dabadda ha loo soo saaro meel saxaaraha la isugu soo saaro magaalada markii dadkii ku jira oo dhan dabadda loo soo saaray ayaa waxay sheegayaan ina jengis khan baa loo tago waxa la yidhi magaaladii hore aynu laynay dadkii badhunbaa seeftu ku dhacday oo iyagoo aan dhimanin laga dareeray dadku may wada dhimanin dadkani waa dad raba inaan qof noolaanin almuwafaq albaqdaadiy taarikhyahankaasi wuxuu lahaa lama arag buu yidhi dad u soo baxay inay wax tirtiraanuun la arag buu yidhi dad intay dal qabsadaan raba inay xukumaan markaas buu yidhi tataarku mulki iyo waxbaba may doonin inay wax tirtiraan unbay rabeen waxaa loo sheegay magaaladii hore ay tirtireen 700,000 lagu dilay dadkii wax nolol uun ku sugnaa inay jiraan wuxuu yidhi magaalada tan dabadda ha la isugu soo saaro kadibna wuxuu amar ku bixiyey magaaladan si aan u hubiyo dadkeedu inay dhinteen dilku waxa weeyaan buu yidhi qof kasta waa in madaxa la gooyaa qaar kasta madaxa iyo inta kale waa inay kala baxdaa dadka madaxa ha laga wada jaro si loo xaqiijiyo qofku inuu dhintay culamada taariikh waxay yidhaahdaan magaalada tanna bila istithnaa iyadaan waxba laga reebin ayaa raggoodii madaxa laga jaray wixii dumar ahaana la ka haystay 15 maalmood baana magaalada baadhitaan lagu waday oo dahab iyo lacag iyo xoolo laga raadcaynayay naysaaburna waxay ka tageen baa la yidhaahdaa atharan bacda cayn raad iyadoo ah meeshii magaalada ahaan jirtay iyana saasaa lagaga tegay haraat magaalo la yidhaahdu soo galay haddana afghanistan waqooyigeeda ku taalla ibnu jengis khan waxba iyaan taariikh balballaadhin siduu kuwii hore u galayana wuu ka takhallusay magaaladan markii la leynayay nin boqora haystay oo la odhan jiray malik khan boqorkiina waxoogaa yaroo ciidankiisi ka mid u qaatay casrigaa waxay caan ku ahaayeen boqorradu ibixiyo wibixi intay yidhaahdaan wuxuu kaxaysan karaa intuu kaxaystay inuu taw yidhaahdo waa in ciidan uu kaxaystay dabeetana meeshii buu ka baxsaday magaalo bilaa ciidan uu soo galay kadibna wuu tirtiray khuraasaan
677 hijriyada sanadkaa gudihiisa ayaa dhammaanteed la tirtiray. علماء التاريخ waxay leeyihiin min أعجب الأمور التي مرت بالأرض إطلاقا weeyaan bay dhahdeen. lama arag khuraasaan bay dhahdeen oo dhammaystiran sanad gudihii wakhtiga yare intaa leeg in sidaa loo galo taariikhda hore iyo dibtoona looguma arag. khuraasaan markuu hubiyey inuu tirtiray ayuu ka tallaabay gobolkii boqortooyadu ay deganayd khawaarzm الخوارزمي بوها بقرطويدية دولة دولة قبل كاس دولة لقى حكومة شري أيوه واعد قبل كاني وحود حيا أوزبكستان تركمانستان لبدا ضل دحدو دبوكي هلا وحمر وبيجا جيحون لا يراهضه خوارزم هو مقاله غنية حاجة نقالها استراتيجية ومال خطر كطالة population aad u tiro badan ay degan yahay boqortooyadii waddankan maamuli jirtay dhulka dadkoodii degan yahay ah kadib maadaama ay taliskii meeshu ay ahaan jirtay ah Genghis Khan wuxuu u diray ciidamadiisii ugu tiro badnaa. Khawaarzm wuxuu kaga xisaabtamayaa maadaama dad badan ina degan yahay dagaal xooggan inay la kulmaan. ficlan way isku dayeen gobolkan dadkii degi jiray iyo magaalada tan inay isdifaacaan. 5 bilood ayay qaadatay inuu xisaar ku hayo go'doomin. 5 bilood wuu furan kari waayey. ciidankii Tataarka waa u suurto gali weyday inuu dabeetana waa la soo kordhiyey. ciidankii Tataarka mar labaad ayaa la tiro badiyey. ugu dambayntii waxay ku guulaysteen Tataarku derbiga qayb ka mid ah aswaar baa magaalooyinkii qadiimka ah ku wareegsanaan jiray derbi difaac laga galo. derbigii qayb ka mid ah buu dumiyey. dabeetana wuu soo galeen dagaal baa bilaabmay. dagaal aad u halisa qabsaday. labada kooxood baa waxaa la yidhaahdaa tiro aad u badan baa ka halaagsantay. yacni dad aad u tiro badan waa la isku madhay. markuu arkay Genghis Khan ciidamadiisa inuu khatar ku jiro ayuu haddana madad kale u soo diray. ciidan saddexaad baa yimi oo Tataarka ah laakiin magaaladan yara miskiinta ayada cidi uma maqna. waayo muslimku qolo waliba tuula gaara baa naftu kaga baxday. wixii isku xidhi jirayna waa tii la waayey oo boqorkii baxsaday.